saddexdan aayadood marnaba ha ilaawin. jin kasta oo jasadkaaga ku jira oo dhibay iyo jin kasta oo gurigaaga kula degay haddaad ku akhrisid ilaahay idamkii waa gubanayaa waana ka cararayaa sida ugu dhaqsaha badan. ma xamili karo saddexdan aayadood. allahu akbar. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليالك سودوادا channel كيغا أستاذ حبيب عبد الرحمن فضلا هداتك عصبتهاي سبسكرايب سارو قنبليل كنفرو سي أي برامجتو مركز تكوسو قاران. maanta insha allahu tacaala waxaynu ka hadli doonaa mowduuca aan hordhaca ku sheegay. waa saddex aayadood ilaahay idamkiina ka adkaan doona jin kasta oo gurigaaga kula degay iyo jin kasta oo jasadkaaga dhibay. haddaad ku akhrisid waa gubanayaa, ma xamili karayo. ilaahay idamkiina sida ugu dhaqsaha badan buu ka baxayaa biidni illaahi mawla. jasadkaaga gurigaagana ka guurayaa, ka qalab aruursanaya. saddexdaa aayadood maxay yihiin? aayadda koowaad waa aayadda fi suurati albaqara. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذنه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. وبيهاس هتكو أخرنيسا إن شاء الله تعالى. مركا جسد كاغا لبس يابا وات سمينيسا جير كاغا مرنا واد عبيسا مرنا واد كو ميرانيسا واد كو قبيسانيسا إلهي إذنك إن شاء الله تعالى بإذن الله المولى. قريقا مركا أذكر شينيسا ما تنادو استعماليسا مايا وما استعماليسا واحد سمينيسا تلغور شيء وادارت مرايدة bahashan rashkan muraayadaha lagu rusheeyo ayaad ku shubaysaa guriga waad ku rusheynaysaa insha Allah taala meel kasta waad ku rusheynaysaa ilaahay idamki biidin ilaahi marka laga reebo xamaamka marka laga reebo meel kasta waad ku rusheynaysaa insha Allah taala ka bacdina biidin ilaahi almawla wa kabaxaya jin kasta. aayadda labaad walaalayaal waa aayadda cadiimka ah ee aayadaha ugu culayska badan وفي سورة البقرة سيدوكالة آية الكرسي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آية كرسينا هو معروف لبدا آية وضع في سورة البقرة أي كتشرح ولا ليال دائما لذلك أي النبي عليه الصلاة والسلام وحينوت المامي قفك قريس سورة البقرة كو أخرية أو كشدة
in aysan u soo dhowaan karaynin jin iyo insi daalima labaduba inaysan u soo dhowaan karaynin waa xilliyada ay adag tahay gurigaasi inuu jin soo galo waa xilliyada ay adag tahay qofku inuu sixir kuu abaabulo uu kuu sameeyo waa xilliyada ay adag tahay gurigaaga in sixir lagaga dhex tago waa xilliyada ay adag tahay inuu jinku intuu soo qaado sixir shaydaanku intuu soo qaado kabacdina uu ku dhex tuuro subxaana allah idan waxaa la yiraahdo labada aayadood ee aan hadda tilmaamayo fi suurati albaqara ayay ku jiraan idan marnaba ha ilaawo walaalayaal aayadda saddexaad iyaduna waa aayad ilaahay subxaanahu wa tacaala inoo tilmaamay oo uu jinkii ibliiska ahaa ku yidhi ka bax jannada fakhruj minha fa innaka rajiim markii jannada laga saaray baa sidaa lagu yidhi fakhruj minha fa innaka rajiim ka bax jannada bimacnaa rajiim malcuun baa tahay laciin baa tahay la fogeeyey oo raxmaddii ilaahay laga dulqaaday fakhruj minha fa innaka rajiim lidaalika waa aayadaha ay ugu necab yihiin inay maqlaan waayo jannada ilaahay subxaanahu wa tacaala barwaaqayo nicam bay ku haysteen ibliisku xataa miftaaxa jannadu waagii hore hayay idan markii laga saarayay aayaddii ilaahay kaga saaray jannada bilaahi calayk jannaabaa lagaga saaray sidee gurigaaga aad uga saari karayda aayaddaa ku celceli marnaba ha ilaawo fakhruj minha fa innaka rajiim 300 jeer xataa gaarsi 400 jeer gaarsi maalinkii fakhruj minha fa innaka rajiim fakhruj minha fa innaka rajiim ilaahay idamkii insha allahu tacaala waa burburaya waana kaa baxaya aayaddaa mar haddaad ku akhrisay wax u dhiman ma jiro biidni illaahi almawlaa sidaan walaalayaal hore idiin tilmaamayna afartii arrin ee aan xalqadii hore kusoo sheegay marnaba ha ilaawo lianna waxaad la dagaalantay wixii naftaada dhibayay marnaba ha ilaawo koow ha ilaawin weysada ku dadaal mar kasta weyse qabkaa ku dadaal waayo tusaale naftaada waad bari kartaa waxaa laga yaabaa yowmiyan 4 jeer 5 jeer inaad jirkaaga iska dhaqdhaqatid gacmahaaga iska dhaqdhaqatid nadaafad ahaan ilaahay baan kugu dhaarshay haddaadan bal u niyeysan ka waran weyso waabaad dhaqaysaa jirkii maad weysaysatid dadka qaar baa oo markasta miyaa la weyse qabi karaa oo hadda qasilka iyo gacmo dhaqowga iyo waxaaba ma ilaaweysidee sidee u ilaaweysaa weysada soo jin kuuma diidin waxa kuu diiday soo jin maaha ilaan waa adigan galabka iyo subaxiiba gacmaha dhaqdhaqanayo marna qasil ku dhaqayo marna kareemo marmarinayo taaba jaanis waad u helaysaa weysadu maxay kaa dhibaysaa weysada marnaba ha ilaawo sidoo kale aayatul kursiga aynu hadda akhrinay waxaynu kusoo tilmaamnay xalqadii hore fi qisati abaa hurayra radiyallahu canhu inuu ku yidhi ibliiska u yimid jinkii u yimid inuu ku yidhi wallaahi kuma imaan kara haddaad aayadda akhrisid wallaahi waqasam billahi inaan ku imaan karayn ee rasuulka ilaahay hay keenin hana igu ceebeen idan waxa la yiraahdo qodobka saddexaad salaad adigoon salaad tukanin lama dagaalami kartid jin billaahi calayk fursad hasiin billaahi calayk cadowga fursad hasiin salaada ku dadaal salaadu waa shay cadiim shanta waqti ilaali ku dadaal tuko sidaada kalena salaadu waxa noloshaada badbaadin waa waxa najaaxa iyo guusha kugu badbaadinayo si kasta isku dhib tuko insha Allah taala hatta hadad xanuunsantahay tuko hatta hadii sixirku asabay tuko بقدر استطاعتك تكون صلاة واجب وفرض العين إلهي سبحانه وتعالى وعلاقة إذن دحي إلهي لما هذ ذكرتك كومنا نحرسنا إلهي سبحانه وتعالى إلهي كومنا نحرسنا حتى علاقة سجرت علاقة إذن دحي سا إلهي أدونكن إساقا جنكنا أبورتي شياطين تن إلهي ساقا أبورتي إلهي إنسكنا إساقا أبورتي جن إنس إلهي ساقا أبورتي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي إلهي سبحانه وتعالى ليه إذن وحل إساقا كاغفلان هذا صلاة سي علاقة سي إلهي قضب كأفراد ولا ريال أذكار المساء وأذكار الصباح قلن كدنبا أذكارتي قلن كهر أذكارتي لبضان إن شاء الله هنا تقول داشي iyo saddexdan aayadood marka waa saddexda aayadood ee aad kula dagaalamisid ilaahay idamkii jin kasta oo ku dhibayna ilaahay idamkii ka saaraysa walaalayaal Allah idin barakeeyo xalqadan insha Allah sii gudbiyo sii sheekareeyo walaalo badan oo arrimaha la dhiban baa jira sii gaarsiiyo WhatsApp ku sii sheekare Facebook aadan ku sii sheekare meel kasta insha Allah taala wajazakumullahu khairan wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad waxaan walaalayaal ilaa weynin waan idin tilmaamay baan u mareenayaa marka jasadkaaga aad ku shubeysadna waad cabaysaa marka kalena waxa la yiraahdo guriga ku rusheynaysa insha Allah taala wa sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyyina Muhammad